saa sheegnaba waa wada akhriseen malyuunay maraysay malyuun haynoo akhri pronouns-ka aday ku maraysa malyuun ma joogto okay aan sii akhrino marka pronouns waxaan dhahnaysaa word waa erey that takes place hallo mila socotiin yes teacher apronoun waa magaciisa apronoun magac u yaal waaye abro ereyga bro iyo noun oo isku dul saaran yahay apronoun so nounku waa magacii browna waa booska magaca ayuu galaha laga wadaa is a word waa erey that takes place qaata ama lagu bedelo of a noun magaca there are different kinds waxaa jira nuucyo kala duwan ama qeybo kala duwan of pronouns ee magacuyaalka okay personal pronouns ma haysin meeshaas personal yes qaybta hore ha ilaa personal iyo subjective wala inta baa sharaxi rabaa ka bacdi marka dhameeyo sharaxaada meesha hadana sawir kale aan ka soo qaadayo insha Allah ila socdo personal pronouns waa person qof waay marka mid ka shaashada ma aragtiin shaashada waa loo jeedaa okay qofka shaashada arki kara kala socdo qof shaashada ma loo jeedo ani waa u jeedaa dhimala qofkii ha isku mashquulinina haddaa shaashada arkaysid ka fiirso haddaad arkaynin taleefankaada whatsappka kala soco sawir ahaanta kala soco insha Allah okay waxaan leeyahay miis fahani qofkii shaashada u jeedo shaashada ha ka aqrista hadduu rabo qofkii kalena sawir ahaanta ha u dhageysto sharaxaadana ha dhageysto okay teacher personal pronouns waxa waaye markii shakhsi ama qof loo isticmaalayo waxaan leenahay personal pronouns may be used waxaa loo kala qeybiyaa oo loo isticmaalaa as a subject of the verb or the object of the verb verbka waan arkaynaa ficilka waaye ama waxa actionska sameeyo waa luqada Englishka kanuuna noogu xiga marka pronouns dhameeno casharada soo socdo verbsan ku qaadan doonaa personal pronouns waxaan leenahay may be used waxaa loo isticmaali karaa as a subject of the verbka inay ka hormarto or the object of the verb inay verbka ka gadaal marto objectiga marka la hayo asaga la isticmaalayaa verbka ka daba maraysa subjectigana verbka ka soo hormaraysa labadooda aan aragno subjectigana aan aragno waxa la yiraahdo objectigana aan aragno ila socdo the subject pronouns magacuyaalka is a subject of the verb waa verbka macnaha wuxuu noqonayaa subject okay jumlo yar aan ku siinayaa jumlo markii la dhisaayo badana waxay ka koobantahay waxa la yiraahdo subject iyo verb iyo object وفينا هنا إلى سعتين subject verb iyo object subjectiga marka waxa la lahaa markasta xasuusno jumlada ereyga oo ka bilaabanayo ayaa la yiraahdaa subject tusaale hoos noogu qoran Lisa likes cats Lisa likes cats aan noo qoran qof kasta ma aragtaa tusaalahaas hallo misla joogna yes teacher waxaan leenahay the subject of the verb does the action meeshaan fiiri subject of the verb does the action falka ayuu sameeyaa subject haddaa maqasho waa doer of the action lahaa ama does the action waxa falka sameynayo waa tusaale cuntadiyaa cunay ama caasho cuntaday cuntay cuntadiyaa cunay caasho is a subject Soomaali ahaan haddaan kugu sheego cuntadii cuntay so caasha falka qofka sameeyo oo cuntada cunto waa caasho in English hadaa dhahnana caasha eats the food so eat caasha is a subject eat is a verb and the food will be object waxaan leenahay the subject of the verb does wuxuu sameeyaa falka of the action of the verb waa verbka falka sameynayay subjectiga ayaa laga hormariyaa the personal pronouns marka maxay noqonayaan waa toddobadan xabo waxa laga rabaa inaad xasuusnaatid oo aad dusha ka baratid yes qofa microphone ku furan yahay
مليون صار الله وتميها aan ku celiyo subject of the waxaan u kala qaadaynaa personal pronouns labo subject iyo object subject markay tahay waa waxa waaye falka waxa sameynaya waxaan leenahay the personal pronouns ka toddobadan eray iska xifdi I you he she it we and they qaab yar ayaan kugu qorayaa qaybta commentiga fiiri qaab loo xifdi karo oo boobsiis loo dhigi karaa qaybta commentiga kugu soo qoraya qaybta commentigaada furo si suurto gasho waa wareegsamay okay qaabkaana ugu fudud I we you they he she it toddobadaa waa I we you they he she it I we you they he she it waa toddobadaas number waxaa la yiraahdaa pronouns sida kalena waxaa la yiraahdaa personal pronouns qaybta commentiga qof kasta waa taqaanaa waxaan u maleynayaa tafsiir qaybta commentiga waa geli kartaa soo ma notification aan kusoo dhacayo fur waxbaan soo qoray waxa aan soo qoraa kusoo dhacayo ka bacdina fur okay si kale aan kuu sheegayaa marka shaashadaadu waxay leedahay qaybta microphone-ka qaybta kamerada iyo qaybta guduuda saddex dhibcood muu jeedaa saddexda dhibcood ku dhufo ka bacdina messages ka sii dooro shaashada kuu soo baxay marka ku dhufat incall messages ma arag yes halka ku dhuf ka bacdina waxaan soo qoraa waad arkaysaa qaabkan hay yaa noo akhrinayo nimco akhri I we you they he she it أنا أخرنا أستاذ أي نوع أخرى I we you they he she it good next يا نوع أخرنا تلقى قارة صوتها مقعد مركلة شيء نم أخرى I you he she it me كعلي آير ترتيب إيسي you واحد سي وطال سان أنا كومنتي وقصة قرأنا أو أقرسان كهرباء I we are she it good يا كلام مليون جرام إذا معلن أنا ما بتشاهد ما واحد عارفينه كومنتيجا قيبت كومنتيجا وحكسو قري جرت سو ما حسوست قيبت كومنتيجا سو قل اقرا انا I we you they he she it اوكي جود مليون اي كومنتيجا سو قل قيبت كومنتيجا ان كول ميسجز سو قل بعدين اخري okay we you they she he she بوق ما تك اخرنيسا maya waxaan ka aqrinayaa commentiga كومنتيجا قابك u taalan ka raba I we you they he she ide noogu qoranta qaabkaas ku qoranta qaabka u qoranta ina waa aqrisa laga raba maxaan soo waa aqriyeen maya you da soo hormarisay hadda aqri I we you ma dhawaada imaqleen macallin wiidaan ka bilaabay ayadaa ka tegay I we you they she he she it yeah good دور meeshaan aad ugu wareertay waxaan hal mar idin koraale walaal macnaha soo share garay laguma dhihin meeshaan google-ka aan ku soo diray linkiga ku soo dhufo click soo dhee farta ku soo dhufo ka bacdina galaaska online ku geynaya anaa ku aqbalaya insha Allah okay adaa ma san diyaa noo dhiman waxaan rabnaa marka toddobadan
I, we, you, they, he, she, it markay yihiin way isbedeli doonaan maxaan ku magacaabnaa personal pronouns waxaan leenahay personal pronouns toddobadaana la yidhaahdaa toddobadaa haddaad barato waad hadli kartaa milyuuni haddaa runta kuu sheegaya toddobadaa haddaa barato macalimada habeen dambe hadday soo gasho waxaad dhigi kartaa toddobadaa aya isticmaalaysa adi markaste ay ani waxaas sameeyay haddaa waa mashquulsanaha dhehaysa ay bc aa leedahay am inaan ku darayna febina cashirka ku xigaan ku qaadanayna soo marka magacyaalkaad isticmaali laheedaa taqaanaa maanta oo dhan I went to outside I went to the school for the children maanta oo dhan marka febkiina waan kusoo darayna soo marka waxaan sameynay jumladii aad dhisaysa maanta oo dhan waxa waaye ereygaas isticmaalaysa toddobadaas rabnaa qof kasta inay xifdiso hadhow habeen ku xiga galaaska korkaad uga bixaysa I, we, you, they, he, she, it soo marka fasir ahaan waxa waa I qof kasta way taqaanaa aniga waaye we annaka waaye oo jamac ah you adiga waaye ama ayaga waaye oo pluralna way noqotaa singularna way noqotaa they waa plural oo waxay noqotaa iyaga waa dadkaa maqan he isaga she iyada idna ma noolaha loo isticmaalaa isaga ama iyada ay noqotaa markan aan ku celinayaa jeclaalaha qof kasta inay meel ku xariiqato takana milyuunay waa naga maqneed oo malaynaya whatsappkan sawir soo dhigay haddii shaashada qofkii arki waayo waxaan iri sawirkaasaan sharaxayaa sawirkaa ha fiirsado macallin marna waa in ka maqnaa marna waa in la joogay maya hadda cashirka markaa ku laabano waxaa lagaa rabaa shaashada haddaad arki weysid whatsappka groupka gal sawiraan soo dhigay oo cashirka ah kaasaad shaashadaada ka fiirsanay kaasaa ku dhufanay kabacdina waa dhegeysanay waxaan leenahay I aniga we annaka you adiga they iyaga he isaga she iyada id isaga ama iyada wixii manoola ah aan cashirkeena ku laabano qaabka pluralka iyo waxaas loogu bedelo aan fiirino aqbal markaa maaga iska baxda hadana okay okay aan laabana marka qof kasta sawirkiisa ku laabato shaashada haddii arki weyso toddobadaas waxaa la yidhahdaa personal pronouns markasta oo aad rabto jumladda inaad magacyaal ka bilowdo ayaga ayaad bilowga dhigaysaa kabacdina feebaad ku xijinaysaa qaabkaas tusaalaha aan aragno waxaan leenahay they can all be used as a subject of the faith dhammaan waxaan u isticmaalnaa as a subject of the faith mila socotiin aan ku celiyo subject pronouns of the subject of the faith does the action waa waxa falka sameeya ama ficilka sameeya the personal pronouns magacyaalada sidii aan hadda waa u aqri kartaa buga kuugu qoran I, you, he, she, it, we, they sidii aan kuugu soo qoray qaybta commentiga ka fudud I, we, you, they, he, she, it can all be used dhammaan waxaa loo isticmaali karaa as a subject jumlad bilaabe of the verb ee verbka laga bilaabo jumlada laga bilaabo study the following two sentences jumlada soo socota fiiri jumlada qof kasta muu jeedaa Lisa likes cats please example-ka qof kasta muu shaashada waxba loogama jeedo macallin shaashada waxaan ku dhahaa haddaad arki weysid whatsappka gal sawirka macnaha soo qaado sawirka soo qaado okay maya waa loo jeedaa macallin sawirka looga jeedo sawirka u jeed oo shaashada mise shaashada tiija ikraan meeqa mara macallin ku celi caawa xoogaa internetka shida naga haysataa waa caawada ugu horreysa qaabkan ay wax dhacaan soo marka waxaan idhi sawiraan soo diray ardayga shaashada ma u baahnid haddaa sawirka haysatid
whatsapp kaada sawirka taleefka shaashada iska saaro kabacdin iska dhigaysa ma ilaa 10 aan dhameenahay sawir kalaan soo dhigay ustaadana ma haaye whatsapp ka fiiri adi ma haysid sax whatsapp kaas kuma jirtid sugaa gooni kugu soo diraya adaa meel kale kasoo gala oo kuu soo diray whatsapp kaa kugu soo diray waha yani qof kasta sawirkaa kala ma hesh qaybta fiiri marka Lisa likes the cat muujida example ka akhrinayo wax Lisa likes the cat qof kasta ha fiiriso example ka Hello, Mili joogtiin Lisa likes cats. She has 4 cats. waxaa waaye Lisa likes cats. She has 4 cats. Okay, qof kasta ha akhriso. Next. Lisa likes cats. She has 4 cats. Next. macallin maxaa waaye aniga dhiba ugu taa markaa soo noqdo waa inaan mar whatsapp tagaa mar soo noqdaa may ma soo laabanaysid ba whatsapp ka bis iska joog qaybta whatsapp ka sawirka bis joog akhri meeshaas ka akhrinayso maahan qaybtaan kuma keenin ani waa inaan codkii furtaa maahan waa inaan soo noqdaa codkii furtaa yaa ustaad may codkaa iska runtaa waa codka haba xiranba ha kuu furnaado maanta oo dhan dhib male ha kuu furnaado haddaa buuqkaa ag jirin ku yar baa ila joogo meesha game ku ciyaaraya markaa waa inaan codka xirtaa ay bal wax sameey insha allah hay indhaha bis ka fiirso xagga iska joog ha soo laaban dhageys waa isku daya macallin waa akrinaa isu ay nimcasi akhri Lisa likes cats. She has 4 cats. good Lisa likes cats cats. She has has 4 cats cats. haddii qofkii rabo inuu fahmo waxa la yiraahdo pronouns waxaan rabnaa meesha inaan ku fahansiyo jumlada bis inaan ku fahansiyo muujeedaa Lisa waa erey color soo black maahan Lisa waa black macnaha madow baa laga dhigay marka waxa la Lisa likes the cats Lisa waxay jeceshahay bisadaha markaan dambe ma dhihi kartid in English waad dhihi kartaa haddaad qof iska bilaabo tahay laakiin haddaad qof English barta aad tahay haddana ma soo dhihi karta Lisa likes the cats Lisa has 4 cats Lisa soo ma celinaysid Lisa erey lagu bedelay leedahay hadda Soomaali aan u dhigo bal jumlada Soomaali aan ku dhigo Lisa waxay haysataa bisado iyadu 4 bisaday haysataa fiiriya Soomaaliga xitaa isbedelaya Lisa ma soo celi kartid iyadu waa inaad dhahdaa macnaha ereyga marka ereyga Lisa muxuu yahay waa magac good a noun it's a noun pronoun maxaan ku iri maxaa lagu bedelaa maxay bedelaan pronounku muxuu bedelaa pronounku wuxuu bedelaa magac oo good magaca booskiisa u galaa magacuu bedelaa intaa waa qofka cashirka la socdo ma jeedin waxa dhaanay Lisa waa noun waa magac pronounka caaw baranaynana wuxuu bedelaa nounka booskiisa u galaa
marka sharci ma ahan in noonkii lasoo celceliyo caawa oo dhan lasoo celceliyo oo la dhaho Lisa likes a cats, Lisa has a four cats, Lisa has a black cat, Lisa waxa kaaga fiican marka ugu horeysa ereyga Lisa isticmaal si loo fahmo qofka ka sheekeynay inta ka dambayso dhanna ereyga she ku bedelo Lisa inta misla fahmi Yes, teacher. waa pronouns-ki qaybta ugu muhiimsan qaabka loo isticmaalayo haye waxaan rabaa jumlo Abdi has a car. Abdi has a car. waxaan rabaa qof pronouns u bedesha hal erayaa la bedelaa Lisa meesha she loo bedela Abdi maxaa lagu bedelaa has the car waa soo qaadanay oo ma bedelaysa Here lagu bedela. okay jumlada ii dhamaystir marka hiya lagu bedela kaliya idin Abdi has a car. He has Good. He has a car. هذا ما سنت. He has. وحدي كرنا فير هذانا إسرائيل يكون بدلا يا علي has a brother. علي has a brother. معلنا هاي. He has a brother. He has a brother. He has a brother. Okay. waxaan dhahayaa students are in the class. Students are in the class. Students are in the class. haye students waa plural ereyga ku bedelayna ma taqaani pronounka ku bedelay we laba ereygan ku bedelayna waa we iyo they laakiin ina fahanti inaan laga rabo we iyo they we da marka adig ku jirtid waay aad u maasan tahay qofka we isticmaala marka adig ku jirto groupka hadlaayo ama wax sheegayo waxaad leedahay we laakiin hadda students marka tiraadid adi waa ka madax banaanta they are dhehe marka they are in the class are leedahay they are lining you macallin uma isticmaali kari ya you waa u isticmaali kartaa have as a plural you are in the class waa dhihi kartaa good ereyga you labo noqdaa iska ilaalsha singularna wuu noqonayaa singular iyo plural uu noqdaa dhahday labadaba wuu noqonayaa waa u isticmaali kartaa laakiin waxaa fiirinaysaa marna kaliya hal mid ay ku kala duwan yihiin you markaad isticmaalayso waa inuu qofku kaa soo horjeedaa waa inuu kula joogaa qof kaa maqan you uma isticmaali kartid hadduu qofku kaa maqan yahay afar eraya meeshaan isticmaale hadduu singular yahay oo nin yahay he uu isticmaal hadduu singular yahay oo dumar yahay she uu isticmaal hadduu singular yahay oo shay ama xayawaan uu yahana id uu isticmaal hadduu plural yahay oo dad uu yahana they uu isticmaal okay qofkii jumladan sheegaa waa qof macnaha cashirka si u fahmay waadixa I and my brother we are sitting. I and my brother we are sitting. We the ana isticmaala I and brother are sitting. I and my brother are sitting. ani iyo walaalkay waa fadhinaa so ani iyo walaalkay cunta cunayna ayaa dhihi kara ilaa waa fadhina kusoo celimayso waa la sheegay soo ma me my brother I and my brother are sitting. ani iyo walaalkay halkaana fadhinaa so waxaan rabnaa marka annaka adiga waa anigii annaka naga mid tahay ani hadlaayo ama ayaa tahay ama walaalkiyaa tahay marka waxaa la rabaa cuntaa cunaynaa eat waa cunidu foodna waa cuntadii eat food eraya laga hormarinaa oo pronouns ah oo I and my brother booskiisa galaya maya qaadanay tee qaadane maya soo jeedo may intaana rabnaani toddobadaana rabaa ma rabo wax loo yaqaano erey kale subject yaa marayna la qaadanaya ama
we ya maxaan ade we qof kalena we uu sheegay laakiin inuu kor codkiisa u qaadaa la rabaa waa saxan tahay we are waay macallin waxa wiil waa marka we are eating food yeah kow maxaan dhahe I and my brother are sitting halkaanaa fadhinaa aniga walaalkay we are annaka waxaa cunaynaa marka haddana mujidu annaka erayga annaka ha we waayo waa saxantiin we are eating food good we are eating food okay aada u mahadsantiin waxaan filayaa hay waxaan rabaa qof dhahdo aniga cashiraa dhegeysanaya ama ani cashirkaa akrinaya ama waa qoraya ereyga ku fudud oo aad taqaani ereyga ay isticmaal jumlad geli adiga waxaa rabta isticmaal haye I am reading I'm reading lesson I'm reading lesson good I'm listening to the teacher listen. good laba qof aa dhiman I'm reading to the lesson. I'm reading good hay igran I'm a student teacher. I'm a student I'm here okay intaa misla fahane subjective pronouns oo loo yaqaano personal pronouns waa toddobada xabo markaa isticmaalayso number 1 waa qofka magac ayaa booskiisa la geliyaa maanta oo dhan magac ayaan sheegayni cabdi dhe ama cali dhe ama lisa dheh magacaas markaa kow jumlada u isticmaashid tusaale waxbaan qoraysaa markii wax la qoraayo aad muhiim ay u tahay xitee waxbaad qoraysaa qofaad wax qoraysaa waxaad dhehaysaa my name is cabdi hadalkaas si fiican u dhegeysaa my name is cabdi meeshaan in cabdi lagu dhaha sheegtay ama my name is caasha soo marka ma dhihi kartid markaa jumlada sii dhaweydid hadalka sii qoraysid haddii cabdi lagu dhaha ama caasha dhahay magacaada soo ma celi kartid waa inaad tiraahdaa I live in Kenya I live in Somalia I work at that place I want to travel so ereyga waa aya isticmaalaysa maanta waxaa qoraysid ama aad sharaxaysid ereyga waayo nani what's the dog kuna online ya glass lakini kwa forward isa forward ya marifu انت مثل فهمي yes teacher اوكي qofkii su'aal ka qaba inta aan isweydiino waxaan rabaa waa kana good waaba tanaaba personal pronouns asagoo jumlooyin badan ah waa kana marka jumlooyinkaana rabnaa qof kasta inuu hal jumlo aqriyo haye okay uma jeediin sawir aan ka soo qaado okay ay whatsapp ka fiiriya ku yar mu jeedaysin dhib ma lahan haddana tan gadaalay ka imaanaysaa laakiin haddii gadaal ka imaaweyso waxba yaanaa sugin whatsappkaada fiiri kabacdina tusaalahaas qof kasta hal xaba inuu qaataan rabnaa sida qaabka loo isticmaalo subjective pronoun ama personal pronoun waa inaad fast magac sheegtaa kabacdina magaca booskiisa aad bedeshaa magacu wuxuu noqon karaa magac caadi ah oo common noun proper noun noqon karaa common noun noqon karaa collective noun noqon karaa wuxuu rabo noqon karaa magacu soo gabagabeera waa cashirka my name is Mark makeup dhib malaan wax saarta ugu dhawaaqi kartaa magac qofeed inaad ku dhawaaqdo yes I am okay good sorry
هاي سي وضو قفك نو أخرنايو my name is My name is Michael. uh-huh. I am 14 I am 14 14. magacay waa Michael waxaan jiraa 14 sano Yeah. mujididu magacay waa Michael waxaan jiraa 14 هذا ما صنطع ماشي أسيا أي شرحي كره معناها واحد كيف فهمتي إسرائيل ده جملة ده إسكالم ما حد كيف فهمتي جملة ده waxaa ka fahmay maxaan ku idhaahdaa magac haddaad isticmaasho inaada magacii soo celinaynin ee magacaas wixii lagu bedeli lahaa toddobada erayga lagu bedeli lahaa aad ka fakaraysid هذا ما صنطع وليجا مركا تراد قف عاد إسبريسو my name is مليون هدا ترادي حدنا مكسو علي كرتيد مليون is 14 أما مليون is a mother وحلادا I am a mother I do the staffs at home I go in school erga ayad isticmaalaysaa marka positionka wixii ka dambe sababta qofka introduction waa sameeyay magacaada waa bartay soo uma baahnid magacaada mar kale inaad soo celisid magac booska waxaad isticmaalaysaa magacaad ka sheegi lahayd erga ay inta misfaan jumlada ku xigta My father walks hard erayada meesha ku yaal waxaan rabaa sidoo yahay inaad u aqriso haddaad qalad waa lagu saxayaa hay ku celi My father walks he was the important. nimco aan jeclaalaha markaa wax sheegaya inaad dhegeysid my father walks erayga bilowgan kaa soo saxay mar labaad kaama sixi kara marka my father walks erayga marka walks dheh he walks in a factory isla eraygaa soo laabtay ku celi My father walks had he هاي نمع جملة my father works hard أبيه سي أدقو وشقيا he works a factory ورشد أيو كشقيا هذا ما صنتها لكن ما حد كفهمت الجملة ده أنا اللي سوي علي ترى ما دعي أبو my father. good مو ده my father بوس كيس محل بدلي برونون كمجعيس برونون كلو بدل نشك he good هذا ما صنتها my father works وو شقيا had سي أدقو شقيا معناه had work قف شقة بدن قبتواي he works وحو كشقيا in a factory ورشدو كشقيا next person قف كعية My sister is older than me. good she is 12 good هاي my sister is older than me ولا شيء أنا وإجوين تأرجع me وتجي دونا وobject pronoun يا subject يا عاو برانينا أما personal pronoun إسا برانينا مركا personal pronouns as object مركا أنتجنو me أم برانينا مركا لكن عاو ماشي نكون برانينا وأرجع شيء فوكس كسارينا جملة دان ما حد كيف أنت أستاذي waxaan ka fahmay in my sister la soo celinaynin oo lagu bedelayo pronoun oo ah she. good هذا ما صنطه my sister is older erga older waa weyn tahay way iga weyn tahay older than me ani way iga weyn tahay and she is 12 toban laba sano jirta ayo qof ka xiga toddobadii jumla meesha noo qoran maxaa dada qof yaa u dambeeya igraana our dog is very naughty our dog is very naughty aad u suuro badan yahay ama aad u gardara badan yahay naughty it fiiri ereyga dog haddaad xayawaan aragto booskiisa maxaa lagu bedelay it he iyo she it mid ma lagu it bisa lagu bedelay
it likes to chase a cats wuxuu jecel yahay inuu bursado bisadaha ereg kastoo kugu cusub waa la bartaa chase ceersasho waaye ama bursasho the dog chased me away from their home gurigo iga bursho eegi our doggeena is very naughty aad ayuu macnaha u gardareen badan yahay it likes wuxuu jecel yahay id a lagu bedelo dog booskiisa to chase cats bisadaha inuu bursado okay jumlada ku xigta Bob lagu dhahay you are bad dog inaa meeshaan la baqina la rabaa jumlada qofku soo tufo eraygu qaldana waa laga saxaa ay adam sugayna sama microphone ku furay macaliyaa la sugayaa okay ana ku laabanayo إكران أنت كبح جلاس كم جرتو؟ ما قوله Good. هاي Bob you are bad dog Bob وحاطة إيحون معناه يا جملة ده شيء جاي إرجع Bob أو مجعها لا شيء جاي كبعدنا مجع يا برونو كويس كل شيء كرتا ماشي هم فيري Bob هكذا عمرني كوما وده عمرني Bob وحدي كرتا جملة ده Bob a bad dog فيريا Bob a bad dog لكن يلا هلا السجال هلا سا هذا Bob هذا دري Bob a bad dog قف كلا دو شيء جسا Bob وإيحنا له لكن ورا علي you a bad guy علي وحنته فيريا علي آتري هذا هذه كورنا علي you a bad أما علي is a bad guy قف كلا دو شيء لكن قف كسوت شيء علي أما عاشو you a bad you are a bad person وحنتي مجيء يبرونك يا أسرع هذا ما سنتين شو لابد الجملة قدام بس لا بقى فاسكو ضيان David and I are playing football we like sports هاي نو آخر تسيرة Kim and كي أنا بفرن لها هذا بفرن David أي and I are playing football David and I are playing football we like sports okay why we لا استعمال ماشان David and I مجيدا وبلورال أنا إيه ديفيد أدا كوجرت الشيكة معناه أدا شيكة كوجرت أنا إيه ديفيد وحن عيارنا بنوني سو مركا وأنا ده أنكو وحن شعلنا هاي أنكو وحن قبلنا أنكو بركي قف كلاي عادي أتكشي كينيسين لما قفنا من نقكرت أجو كبدني نقكرتا وحدي كرتا my brothers ولا له and I are playing football أنا ولا عليه بروني أدينا my friends and I إسا كداري كرتا بلور على كديجيسا أنا أما صدق هاي مليون جملة قدام بس chief and chief are brothers yeah, Chief and Chase are brother are my brothers yeah. بلور على are all they are older than me أما they are older than I am وسلام ماشي هذا ما سنتا ماشي أنا مركب then I am ماشي ما حنكفه هني chief فيريا team and chief ويل يجبر ينقو كران هذا ولا بويل أو my brothers ولا عليه واي لكني وحنا نقو كران ويل يجبر وحنا نقو كران وحنا ربان سو مركب لبا مجا مركب شيء لبا مجا عاد شيء يصير وحوا لبا قفوا كل شوكت معهن مركب وحلا team and chief are my brothers لبا ويل ولا عليه they are إيجا أرجع صفي عن فير إيجا مركب ضد كشيء كين يصير they استعمال ضد كون أيهين بلورال هدي ماشان أو team كل أهلا محنيه لهن team is my brother بس هدي أهلا قدال أرجع they بوس كيس محلو بدل لها he قالوا بدل لها good he is older than me لكن هذا بلورال واي they قالوا بدل لها هل كان 10 كعاون وجاي
waan filayaa inaa fahanteen wixii